bismillaahi raxmaani raxiim kulan wacan oo wanaagsan dileehantiin baddaawadayaal kusoo dhowaada tv-ga runshe qodobada aan idiin haynana waxaa ugu waaweyn cabsi soo wajahday maamulku uu hogaaminayo qoorqoor. cabsidaasi maxay tahay barnaamijkan idinkugu soo gudbin doonaa. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka noqonaya maxaa kasoo baxay kulankii dhexmaray ra-iisul wasaare Rooble iyo amiirka Qatar. barnaamijka ayuu qayb ka noqonaya waxyaabaha ay ka wada hadleen. waxaa sidoo kale barnaamijka aad ku daawan doontaan Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo dalbaday in laga wareejiyo hogaanka midowga musharaxiinta. sababta xilligan ay kusoo beegtay barnaamijka ayaad ku daawan doontaan. waxaa sidoo kale barnaamijka qayb ka noqonaya ra-iisul wasaarihii hore ee Soomaaliya Xasan Cali Kheyre ayaa war ka soo saaray khilaafka ra-iisul wasaare Rooble iyo Farmaajo. qodobada kale aad barnaamijka ku daawan doontaan waxaa qayb ka noqonaya isla markaana idin xiisi gelin doona cunto laga cunay maqaayad Muqdisho ku taala oo sababtay dhimasho iyo dhaawac. barnaamijka ayaan idinkugu soo gudbin doonaa qodobadaasi oo dhan ayaad barnaamijka ku daawan doontaan. fadlan haddii aad channelkan ku cusub tahay share, like iyo comment inoogu reeb si dad badan uu gaaro. sidaad qodobada aad ku daawateen cabsi soo wajahday maamulka uu horkacayo qoorqoor. wasiirkii hore ee arrimaha gudaha Soomaaliya haatan xildhibaan ka tirsan golaha shacabka Cabdiraxmaan Maxamed Xuseen Odowe ayaa sheegay in maamulka Galmudug uu hogaamiyo qoorqoor uu halis ugu jiro inuu burburo, taasoo uu sheegay inay tahay arrin marnaba la aqbali karin. Odowe oo hadal ka jeedinaya xaflad lagu taageerayay in la wada ilaashado maamulka Galmudug ayaa carabka ku adkeeyay in dagaalka ahlu sunna ay ku qabsanayso deegaano ka tirsan maamulka uu wiiqayo jiritaanka maamulka, isla markaana loo baahan yahay in miiska wada hadalka wax walba lagu xaliyo. haddii la yiraahdo hadda Guriceel baa la qabtay, beritana la qabsanayo Dhuusamareeb. haddii la yiraahdo hadda Guriceel baa la qabtay, beritana waxaa la qabsanaya ayuu yiri magaalada Dhuusamareeb ee xarunta gobolka Galgaduud. annaga ma jiri doono jid aan jidkaan ahayn hala yimaado. kuwa culumada sheeganayo haddii ay tabasho qabaana waa la qancinaya ayuu yiri Cabdiraxmaan Odowe oo ka tirsan xildhibaanada baarlamaanka Soomaaliya. ahlu sunna wal jamaa ayaa dhawaan waxay la wareegtay magaalada Guriceel. sababaha ay loo wareegeen waxa ay ku sheegeen inay la soo xiriireen shacabka halkaasi ku dhaqan, iyagoona sheegeen ujeedkoodu uu yahay sidii ay ula dagaalami lahaayeen ururka Al-Shabaab. daawadayaal waxaad daawanaysaan tv-ga runsheega. fadlan haddii aad ku cusub tahay channelkan share, like iyo comment inoogu reeb si dad badan uu gaaro. qodobka kale aad barnaamijka ku daawan doontaan waxa uu noqonayaa Sheekh Shariif ayaa dalbaday in laga wareejiyo hogaanka midowga musharaxiinta. Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa xubnaha midowga musharaxiinta mucaaradka ka dalbaday inay doortaan hogaan cusub, isagana uusan intaan ka badan sii hogaamin karin golaha. sida uu xogta ku helay tv-ga runsheega, kulan 3 cisho ka hor ka dhacay magaalada Muqdisho ayuu Sheekh Shariif Sheekh Axmed ku wargeliyay xubnaha golaha inuu ahaan doono xubin caadi ah oo golaha ka tirsan, isla markaana uu kasoo qaybgeli doono kulamada. sida ilo wareedyo ka tirsan golaha midowga musharaxiinta u xaqiijiyeen tv-ga runsheega, dood adag ayaa ka dhalatay codsiga uu soo gudbiyay Sheekh Shariif Sheekh Axmed oo ah in laga wareejiyo hogaanka golaha midowga musharaxiinta. inta badan xubnaha midowga musharaxiinta ayaa diiday inay aqbalaan codsiga madaxweynihii hore ee Soomaaliya Sheekh Shariif Sheekh Axmed, taasoo ay ku tilmaameen in ay sababi karto burbur ku yimaada golaha midowga musharaxiinta. xubnaha golaha midowga musharaxiinta ayaa Sheekh Shariif ka codsaday in dib uu u dhigo iscasilaada, isla markaana golaha isugu yimaado kulan kale oo looga xajoonayo arrintani soo korortay. sida uu tv-ga runsheeg u ogaaday, Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa waxaa ka go'an inuusan sii hogaamin karin golaha, waxaana fasiraado kala duwan laga bixiyay sababta keentay go'aanka Sheekh Shariif. muddooyinkii la soo dhaafay waxaa sii xoogeystay tuhnada ku saabsan in Sheekh Shariif Sheekh Axmed uu ku milmay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, taasoo ay sheegeen inay dhaawacayso muwaadida loo sameeyay golaha midowga musharaxiinta. dadka xogtan badankeeda faafiyay ayaa la sheegay inay ka tirsan yihiin golaha midowga musharaxiinta iyo dad kale oo aad ugu dhow. waxaana la sheegay in Sheekh Shariif uu dhibsaday
tuhunkaasi iyo fariimaha laga faafinayo, taasoo keentay in go'aankani uu qaato. sidoo kale Sheekh Shariif Sheekh Axmed ayaa hadda qorsheynaya inuu si gooni ah uga baxo oo si toos ah ugu bilaabo ololihiisa doorashada oo uusan waqti badan isaga luminin mucaaradnimada madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa khudbad ka jeediyay munaasabadda caleemasaarka ra'iisul wasaaraha Itoobiya. Farmaajo ayaa sheegay in muhiim ay tahay in dalalka gobolka ay xoojiyaan iskaashiga wax wada qabsiga, nabadgelyada, ganacsiga iyo xal u helidda masiibooyinka dabiiciga, isagoona xukuumadda cusub u rajeeyay in ay ka dhabayso himilada iyo filashooyinka dadkooda. dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed waxay ugu hambalyeynayaan ra'iisul wasaare Abiy Ahmed guushii baaxadda lahayd uu ka gaaray doorashada. waxaan u rajaynaynaa ra'iisul wasaaraha iyo xukuumaddiisa inay horumar gaarsiiyaan shacabkooda iyo dowladooda, ayuu yiri madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo. Farmaajo ayaa shacabka iyo dowladda Itoobiya ugu mahadceliyay soo dhaweynta diiran ay u sameeyeen isagii wafdigiisa, taasoo ka tarjumaysa buu yiri xiriirka saaxiibtinimo ee ka dhaxeeya labada dal. Itoobiya iyo Soomaaliya waxay ku raaxaystaan xiriir laba geesood oo taariikhiga iyo xiriir saaxiibtinimo oo xoog ah oo ku dhisan is-ixtiraam, xiriir shacab oo xoogan iyo isku xirnaan sii kordhaysa, ayuu yiri Maxamed Cabdullaahi Farmaajo madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaan ka wada shaqeynaynaa inaan abuurno geeska Afrika oo ammaan ah, isdhexgal ah, isla markaana barwaaqo ah, taasoo u wada wanaagsan dhammaan dalka, ayuu yiri Farmaajo madaxweynaha Soomaaliya. Soomaaliya iyo Itoobiya weligood ma yeelanin xiriir wanaagsan ka hor Farmaajo iyo Abiy Ahmed, waana laba dal oo weligood cadaawad iyo loolan uu ka dhaxeeyay tan iyo intii ay Itoobiya gumeysanaysay dhulka Soomaaliyeed. wafdiga raacay madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ee ka qaybgalay caleemasaarka Abiy Ahmed ra'iisul wasaaraha dalkaasi Itoobiya waxaa ka mid ah wasiirka wasaaradda qorsheynta Jamaal Maxamed Xasan, wasiirka wasaaradda gaashaandhigga Xasan Xuseen Xaaji, iyo agaasimo ku-xigeenka guud ee madaxtooyada qaranka Cabdinuur Maxamed Axmed. madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliya ayaa ugu dambeyntii caleemasaarkaasi markii uu ka qaybgalay wuxuu dib ugu soo laabtay magaalada tan Muqdisho. daawadayaal weli waxaad daawanaysaan TV-ga Runsheega. qodobada kale inoo harsan waxaa qayb ka ah maxaa ka soo baxay kulan dhex maray ra'iisul wasaare Rooble iyo amiirka Qatar. ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble ayaa safar shaqo ku jooga dalkaasi Qatar ayaa maanta magaalada Dooxa kulan kula yeeshay amiirka dowladda Qatar Sheekh Tamaam bin Mohammed Al Thani. ra'iisul wasaaraha iyo amiirka Tamaam ayaa isaga wareystay arrimo dhowr ah oo ku saabsan xoojinta xiriirka Soomaaliya iyo Qatar iyo sidii ay Soomaaliya ugu taageeri lahaayeen dib u dhiska dalka. ra'iisul wasaare Rooble ayaa amiirka ku amaanay taageerada dhinacyada horumarinta kaabayaasha dalka maadaama ay Soomaaliya ay ka taageerayaan dhinacyadaasi. Injineer Rooble ayaa xusay in Qatar ay tahay saaxiib muhiim u ah oo leedahay Soomaaliya, kuna garab istaagan sidii dalka uu dib ugu soo kaban lahaa dhibaatooyinkii ka dhashay burburkii, isagoo codsaday inay sii wadaan dadaalkooda ku aadan horumarinta kaabayaasha dalka. amiirka dowladda Qatar Sheekh Tamaam bin Mohammed Al Thani ayaa ra'iisul wasaaraha ku bogaadiyay dadaalkaasi ku aadan qabsoomidda doorashada, wuxuuna ballan qaaday inay sii wadi doonaan taageerada ay la garab taagan yihiin dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. sidoo kale ra'iisul wasaare Rooble ayaa magaalada Dooxa ee dalkaasi Qatar kulan kula yeeshay ra'iisul wasaaraha dalkaasi Qatar Sheekh Khalid bin Khalifa Al Thani, kaasoo looga hadlayay xoojinta xiriirka labada dal iyo kordhinta mashaariicda horumarineed ee dalkaasi uu ku fulinayo Soomaaliya. qodobka ugu dambeeya aad la socon doontaan waxaa qayb ka noqonaya cunto lagu cunayay maqaayad Muqdisho ku taala oo sababtay dhimasho iyo dhaawac. maqaayadda ku taala magaalada Muqdisho ayaa xalay waxaa dagaal nuuciisu ku cusub yahay magaalada ku dhex maray ciidamo ka wada tirsan dowladda Soomaaliya. dagaalka ayaa markii hore ka bilowday gacan ka hadal dhex maray shaqaalihii maqaayadda iyo dhalinyaro ka casheynayay maqaayadaasi
oo ayaga bixin waayay lacagtii cashada. Kadib waxaa daqiiqado gudahood soo gaaray maqaayadaasi askar ay wacdeen dhalinyaradaasi ayaa meesha iska horimaada ku dhex maray ciidamada ammaanka oo gacan siinayay maqaayada iyo kuwo kale. Gabdho iyo wiilal ka casheynayay maqaayadaasi ayay dhaawacyo ka soo gaareen iska horimaadka halkaasi ka dhacay, iyadoona lasoo sheegayo in oday halkaasi joogina uu ku geeriyooday. maan markii ugu horeysay ciidamo ka wada tirsan dowladda oo iska horimaada ku dhex maro magaalada, hase yeeshee arrintani ayaa waxay fajac iyo layaab ay ku noqotay shacabka ku dhaqan caasimadda. guud ahaan inta ayaan kusoo gabagabeynaynaa barnaamijkan aad ka daawanayseen TV-ga Run Sheeg. waxaa soo jeedinayay Cabdiraxmaan Balaag. fadlan haddii aad ku cusub tahay mar kale haddii aan idinkugu celiyo channelkan share, like, comment si dad badan uu gaaro. wabillahi tawfiiq.